بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ذوي التقى، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى هايدين دورو ملك السؤال دافها عالم كاد كجوكتان. إلهي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحان كويدي سننا إنو عمل كينا إنو غير عمل مقبولة، إنو جلسدنا أما كلن كينا نعاوة وكيلو كلن لغفا إذو kulan wax ka ool ah, kulan midkii caawa layfkan goobjooga ahaa marka uu ka baxo uu yiraahdo alxamdulilah faa'iido fara badan ayaan kala kulmay. kulan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajeynayno ducada iyo kilibkan kelimada kooban oo kusoo guurinayno mid ummad badan ay ka faa'iidaan. midna waa idin sheegaya ducooyinkan hadda mar dhexdaa dad fara badan baa soo wacay. intana soo wacday waxay walaalo wallahi kurba ay haysay ducayron xifdiyay baan caado ka dhigtay oo ku duceysay ilaahay tabaaraka wa tacaala faraj buu ii furay. ilaahay subxaanahu wa tacaala meel aan ka baahnaa buu iga buuxiyey. waa kelimo kooban, anigu maxay igu tahay marka inaan u gudbiyo walaalka si uu walwalkaas iyo walbahaarkaas iyo kurbada haysa uga baxdo. marka aniguna inaan ka baqayla ma inta yarto aan ducada hayo, adinkuna ha ka baqayn inaan ummadda kala wadaagtaan, adiguna yaqiin ku qab. yaqiin آيات عجيب وحا قرآن الله تبارك وتعالى وكله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى آيات معنا فيه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إله حلي أدوه أدونك ماكو يبريو نبي الله حتى أدونك وديان وحد أشكت إنا أدوه هاي إله ما كودو. إله حلي أدون كان يبريو وأن أدوه هايو إن وحان تصنع رب سبحانه وتعالى وكادرين وأي صحابة النبي وحيده نبي الله إله مركان برينو إله ما نقفقوا بيله إله نقفقوا نقد ديربا مستوى إله نودو هوس وهذا الله إله ما عدك على كرقات أما هوسو لك وأسكو الصيام بتقص منتهى. لكن سي أدابته كجرته وحاوليان إنه قفكوا إله سبحانه وتعالى متك دول لها اللي يسد نبي دول لها اللي ما يسد متدقى حيرانه ست ترتيبه ودعيسه مركو حنكوضا دعوين كان لو دعيسته آداب بالله النفط الكل آداب بالله مركو دعيسني يسد آداب بالله dhowr jeerna waa shay caawan idin ku celinaya. haddaa rabtid inuu walwalka iyo walbahaarka iyo kurbada ku hayso ood ka seexan laadahay. aabba Soomaaliyeed baa igu yiri wallahi ducadan oo u sheegay waliba si af Soomaaliya ugu qoray wuxuu igu yiri inuu habeenkii kulli dhibaato haysatay. habeenkii aan waxta markaas seexdo oo isgagadiyo xaajiyada baa la jifto yiri caruurta baa ii joogo gurigay waa buuxa. haddana markaa isgagadiyo wixii aan kulli waxa ka maqan waxa igu soo dhaco wixii u taagnaa markaas hurdada iga zuushaa ma jirtaa waxa taan akhriyo aan ku qabowi karaay. xaqiiqatan ducadan ayaan maaragtay u sheegay kulli inuu waxa laga yaabaa hadda uu live yahay dadka ka faa'iidoon kamid yahay si gaar ah u sheegay. waxay ahayd oo maalinka shalay ahayd wallahi islaamaantu isoo wacay walaalo ilaahay khayr ku siiyo wallahi weeyir markaan weysiisay oo aan dhabanka maaragtay sariirta saaray oo seexday walwalkii ducadaas oo ku yaqiinsu yiri ilaah baan ku dhaartay wuxuu xalas fiican ma u seex. هذا أنا ماهي دعادي والنبي قال شيء نبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبي اسكمها الله بل وحي والبوكها الله يوحوها وحي إله سبحانه وتعالى من السماء. إن سمانا لقى النبي عليه الصلاة والسلام لقى وحيوني مركو حرمنا إن شاء الله تعالى دعواتك عاد إلهي بريسان يدعوينك إله باكله إني قريب وكود وهي أجيب وكأجيب دعوة الداعي متك إيه رميو إلهي تبارك وتعالى عليه متك يبريو وصو عربيو وان كأجيب الدعاء الدعوة يقرب. الله أكبر. ابن آدم كما كان برد ودباته لكن مركا إلهي برديد إلهي وكوفر حياة. فكذلك آدابت الدعاء نقهر مرة عاو وإذن حسوسينيا دور جربا ينشغل وإذن حسوسينيا مرة بتاينا دعيستها دعوينك مرة وحاجة سيجارة لو أقبله مركا مسايد جوكتد أما آد مقشد بين الآذان كهوري إقامة أنت أقول حيثو ducada waa la ajiibaa si gaar ah u duceyso aadaanka iyo iqaamada. tusaale ahaan gabdhaha waxa laga dhahaan aniga masaajid ma joogi aadaanka inaan maqlayn baa laga nacam taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga ama guri wax ku yaalo markuu aadimo aqinka inta u dhaxayso waa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo intaas soo weysayso
salligaaga imow laba ragca tuko oo aadan kugu jirin wax adduunyo aadan kaga fikirayn soo fadhi salligaada kow qiblada qaabil adaabta ducada wax kamid qofka inuu soo qaabilo qiblada soo qaabil kow ثانيا إلهي سبحانه وتعالى أمان إلهي تبارك وتعالى أمان أنا ما أقعنا في عربي إلهي أف صومالي بكو أماني كرتا أف طليان بكو أماني كرتا لو قد والبكو أماني سا لكن سكسي ولا سمى بكو شيء إلهي تبارك وتعالى بكو أمانتا سورة الفاتحة ورسول الفاتحة ما تقانان نعم وانا قانا سورة الفاتحة وأمانوي الحمد لله رب العالمين إلهي وضم هذس عالم كانوا ربي أبو ري اسكالها بات إله وما سنته الرحمن الرحيم وأسماء الله تبارك وتعالى ومقاعد الله تبارك وتعالى تكو أمانتي مالك يوم الدين قيامي بات مارت إلهي سبحانه وتعالى اسكالها إيمانت قيامها يوسقناتي يد أمانتي مركا أنت سومرتد ولبا أضونك مركو سوقارو إياك نعبد وإياك نستعين إله بهالله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل تاني وأني أدونكيغا وحي inoo dhaxeeyo adoonkayga wuxuu wadiisana siinaya markaas waxaan raana maalin walbo ihdina siraata almustaqim ilaahu wadada toosnayd iyo hanuuni maalin walbo duceysana laakiin isma weyn maalin walbo qofku duceysanaya ihdina siraata almustaqim leeyahay marka waxaan ka wadaa qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku amaan suuratul faatiha uu ku maqlayaa oo ku ajiibaya biidin ilaahay tabaaraka wa tacaala mid kale marka ilaahay amaantid fadlan ha iloobin maskaxdiisa ka bixin inaad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku sallis ilaahay baa amaanta kow ثانيا نمبر لبو كصلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت والدعاء ويبضيهن اللهم صل على محمد وعلى آله وذات رهيب وصحبه وسلم وكاكوبتا وكاقديسا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وإبراهيم إذا كدرتد اللهم صل على سيدنا محمد أدو السيرة كوبا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أقول صلي هل كان قضب كلاباد واي متك صدحات يقين كقب إله أبريسد إنه كأجيبي يقين وحد كقبتا إله تبارك وتعالى أبريسد إنه كأجيبي دون بإذن الله تبارك وتعالى إله تبارك وتعالى أبريسد إنه كأجيبي يكوكر صنم دعاء إن لقى هذا لقى أجيبه وهذا الكاش الوصي إن لقوه كيديه إن بلايك وسعت لقى عليه صدح لا متكدوي إن هذا لقى أجيبه كاش لقوه تريه إن قيامها ما لقوه كيديه إن بلايك وسعت لقى حجابه انت اصلا من دعاء اسكو سو دغليان هذا امرك ان شاء الله تعالى ان دعاء القصيد ان قال النبي محمد عليه الصلاه والسلام اي سو غلي مال مالوها كميده مسايد كمركو سو غلا فاذا هو برجل من الانصار مسايد كمركو النبي ساو سو دخغلي مسنه نين ري انصار مسايد كو دخجيرو او لا يراد ابو امامه انا ابي امامه لو ودي كرتا النبي عليه الصلاه والسلام سؤال عجيب ودي مالك يا أبا أمامة أما أبو أمامة أبو أمامة محاك ودعي مساجدك ما أنت واحد فلذا مساجدك ما أنت واحد فلذا وقتي أنا هي وقتي الصلاة ولا فلنجرنا محاك ودعي سحابي بقى هالله وحي النبي الله ديون يولول يولبهار يكربو أنت بقى سوكي تكتي ففروا إلى الله إله بقى حي إله حق يسألوا عرّو مساجدك وصو عرّو كو والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام wuxuu soo galay saxaabi masaajidka dhex joogo walwalsan kurbaysan kurba iyo walwal iskaga daba tagay markaasuu nabigu wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam maxaa ku helay oo maxaa masaajidka saacadan ku dhigay waqtiga salaada ma ahayd markaasuu nabi allow saacadan oo waqtiga salaada ahayd waxa masaajidka soo galiyay humuum iyo walwal iyo walbahaar iyo diyuun waliba isdul fuushuy taraakamat calayya sakay dul fuush nabigana wuxuu ahaa raxiim wuxuu ahaa ra'uuf ودم قضي وحور ربا نينك كان والولسن والبهارسن wax ka fujiyo inuu u sheego markuu baraawi kalimaad hadaad ku duceysid oo ilaahay ka qaadayo walwalkaagi walbahaarkaagi deemihi iyo inta ku hayso dhan markaas nacam nabi Allah u sheeg waa uu suu ilaahay waxa laga yaabaa intiina badan qaybana kamid inay maqleen qayb laakiin ducadaas waana qaanay laakiin ma akhriyo لكن ما تحكوتها فذكر أما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن حسوسين بكوتها ولا
nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabi wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaa weliba intaana ducada gelin dhowr arrin baan ku leeyahay iyaaka waxaan kaaga digayaa inaad quusatid ha quusan weliga ha quusan raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ka quusto gaalada raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka quusto oo maarata ka niyad jabo qof aanan xagga rajo ka qabin rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay waa asagii ahaa lahaa tabaaraka wa tacaala aman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu suu ee qofka marka weliba xaaladda ku cakiran tahay ee uu ilxaaxa la yimaado uu rabbi subxaanahu wa tacaala ku calaacalo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu dhimriyaa wuuna u naxariistaa ilaahay tabaaraka wa tacala waxaad garanaysaa nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ghaswatu bader markii uu istaagay oo ilaahay baryey ilaahay subxana wa tacala ku calaacalay oo xataa imaradu ka dhacday uu is-iloobay uu lahaa intaan maanta haddii la laayo in dambe adduunka ugu caabudiisa ma lahan waxaa li nabigu u is-iloobay xataa dharkii uu watay maradii dhan baa ka dhacday marka ilaahay xataa marka aad baryaysa qof muslim ah oo aad qaalib ah wuxuu ugu yidhi wallahi aad kalimad wuxuu yidhi markaan ilaahay baryayo waan aqaanaa biri waa hadalka umuna caisha tiriba markaan ilaahay baryayo waan aqaanaa in ducadaas laga aqbalay in kale maxaa ku taqaanaa aniga dhan baa isbedelo jaraac igu jabto ilin baa iga timaado qalbigii baa isbedelo aniga dhan baa nooc kala noqdo nacam waa saas wey qofka markuu ilaahay baryaayo oo ducadii ku celceliyo oo ilxaaxa uu ku jiro oo ilaahay isku bihinbihinayo wax badan buu helaa tusaalaan ku siinaya hooyadu ilmaha yar ba waxay rabtaa waa hooyo wey tusaale gooban oo aad u fahmaysaan wey hooyadu ilmaheeda waxay tiri wuxuu yidhi hooyo isii waxaan ma rabto inay hadda siiso ilmihii waa u ooyey oo u aamustay waa u ooyey way u aamustay waa u ooyey markay aragta ilmaheedii inuu ku dul ooyayo oo kusoo laalaabanayo o ka dhaqaaqaynin oo wax walba ku samaynayo waa hooyo iska daa cid kale hooyadu markii way damqaysaa waxay saysiinaysaa ilaah baan kugu dhaariyay ka waran ilaahay ku khalqay ee ku abuuray ee ku samaystay markaad salaadii duhur markaad tukatid aad gacmaha u horsa ee tiraah yaa rab ilaahayo ilaahu gacmaan ku horsaday ilaahu maanta waa kugu calacalaya waa duhurkii waay xagga dhigo salaadii casar baa haddana tukatay salligaad fadhida yaa rabbi ilaahayow rabbiyow ilaahayow wixii aan maanta gudisa haddana ku weydiisanaya war ii dhig xagga waa casarkii haddana waxaa ku xisooxiga maaragtay maqribkii gacmihii baa horsa yaa rabbi ilaahay baad ku calacashay cishihii baa la gaaray yaa rab intaa kumaada ekaanina habeenkii sakdi dhexaa soo kacday ilaahay baan kugu dhaariyay walaashay iyo walaalkay iyo cidda i daawanaysoy ma rabbi subxaanahu wa tacala wax ka wanaysaa marka xasha kalla ducadaada waa la qaaday laakiin yaqiin ku qab ducadan way dhaqaaqdaye meesha u socota adigu ha ka hor istaagin in balaayo kugu socotay laga xijaabay u niyeyso in balaayo ama laguu keydiye maanta maalina kaga baahi badan tahay tusaale kalaan ku siinaya dhowr jeerna waa sheegay adiga qof baa ku yimid maanta wuxuu ku yidhi waxay sii jeebka wax iga sii saan baa tiri warna waxaa tiri lacagtaan hayo maaratay ima finle xoogaad ka lexleexatay wuu kaa tegey wuxuu kugu soo laabtay waa isla qofkii isla saacado kadib kugu soo wareegtay war hebel waxay sii buu ku yidhi waad ka dhagoolaysay waa iska seexatay dariskaagii waa ayaa kugu soo qaracay qaw albaabkii baad habeennimo soo waxda waryaa ku soo wacayo ama yaa ku soo qaracay gurigii markaad guriga albaabka furtamaysana hebel baa taagan oo kule nimo maanta wax baan ku weydiistay haddana wax baan ku weydiisanaya intii aan ku weydiisay isii qofka damiirka leh qofka damqashada leh intuu isgarto ayuu wuxaya gacanta u gelinaya adiga marka su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay ilaahay salaadii subax baad bariday marka aad tukatay duhur casar maqrib cisho inta baad tukatay haddana ummaddii oo dhan markay jijiifatay oy seexatay ayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala asagana u yimaad samaa dunya ayaad gacmaha u horsatay waxaad tiri yaa rabbi ilaahu dadku waa seexdeen dadku seexdeen anigu waa kaa seexan waay ilaahu ummaddu way kala seexatay waa la quurinayaa laakiin anigu waa quurin waay walwal baa hayo deen baa igu taagan kur baa i hayso ilaahu waxaasoo dhan baa isuka yimid ilaahu ilaah kale ma lihi ilaa anta adigu baan ku leeyahay ilahu adaan ku calacalaya adaan ku baraya marka intaasoo dhan tiraahid waxaan hubaa oo shaki uusan ku jirin oo yaqiin aan ku qaba wallahi yaqiin cala allaahi aan ku qabaa haddaa waddadaa martid in ilaahay tabaaraka wa tacala ku dayacayn in ilaahay tabaaraka wa tacala uusan kaa ku hoojinayn ilaahay tabaaraka wa tacala u dib wax u dhiganayn bal waxaad garanaysaa qisaad kor kaga shakaa jirto nabi muuse calayhi salaatu wasalaam waa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kaana kaliimullah ducadu waa socotaa kaana kaliimullah ilaahay wuu la hadli jiray nabi muuse ayaa waxa uu sameeyey
haweeney baa u timid waxay ku tiri yaa muusa ilaaha ii bari oo maxaa ilaahay kaaga baryaa waxay tiri ilaahay waxaad ii weydiisaa inuu ilaahay awlaad i siiyo nabi muuse si toosu ilaahay ula hadli jiray ilaahay buu u dhaqaaqa xaggiisii yaa rab haweeneyda tan ilmo doon wey ilaahow gabadhan ilmo sii ilaahay uu la hadla nabi muuse yaa muusa gabadha tan xaggayga waxay ka qoran tahay madhalays caqiim hiyo caqiima gabadhan liiskayga waxay ku jirtaa dadka aan dhalin ee ku tashaaliyin nabi muuse u qancay wuu iska qancay leanna gabadhan liiska waxay ku jirta dadka aan dhalin dadka madhaliska wuu soo laabtay maalinka dambe gabadha u timid markaa ka yaa muusa ama yaa nabiy allahi adiga kaliimullahi ilahay baa la hadashaa ilaahay ii bari inuu ilaahay awlaad i siiyo nabi muuse wax buu ogyahay wuxuu rabaa gabadha tan inuu qalbigeeda qaboojiyo wuxuu ku yidhi walaashay soo dhowow ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kuu weydiiyey waana kugu calacalay laakiin buu yidhi waxaan ka xumahay ilaahay wuxuu kugu daray ood ka mid noqotay kuwa aana waxbana dhalin ee ku qanac ayaduna xikmad rabbaaniya wey gabadhi ma yeelin mayay tiri waxaa la hadlaya waa nebi waxaa la hadlayo waa nebi wey waxay tiri maya weli ma qancin bay tiri tolow maxay rabtaa ma seexanin habeenkii bay taagan tahay xataa maarata laguheedi gumadahii dildalaaceen maalinka o dhan bay taagan tahay kurbaa hayso markay tukatay rabbi u sujuuddo ilaahay weydiistaa waa ka quusan weysa ilaahayga abuuray laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilah waa isaga lahaa ilaah kamuusay quusan laakiin liiska waxay ku jirtaa dadka aan dhalin maxaa dhacay walaalayaalo waxaa dhacday muddo kadib bacda siniin haweenaydii oo socoto oo ilmo sidato dhabar ku sidato ayaa waxay iska hor imaadeen nebi muuse calayhi salaatu wasalaam nebi muuse waxay ku noqotay dahsha iyo layaab gabadhii shalay ee ku jirta liiskii madhalayska ahaa ee maanta ilmo sidato markaasay ku tiri miyaad i garanaysa markaasuu ku yidhi miyaadan ahayn gabadhii noocaas oo noocaas ahayd nacam bay tiri oo ilmahan ayaa ku dhalay anaa dhalayt waxaa laga haddan adinka qaab karin inaad yaaban tihiin kayfa waqaca see ku dhacay qisadan nabi muuse calayhi salaatu sala arrintii waa u qaadan waayo halkiibuu ka dhaqaaqay weysadiisuu galay ilahay buu gacmo u horsaday wuxuu ku yidhi yaa rab maxaa dhacay maxaa qaldan waxaad ii sheegtay haweenayda tan inay ku jirto liiskii madhalayska maantana waxaan arkay inaad gabadhii ilmo sidato say wax u jiraan maxaa isbeddelay yaa rab akhi lkariim wa ukhti lkariima ba kelimadaan dhegaysta ilahi subxaanahu wa tacala qur-aankiisa ku yidhi ilaah nabi muuse kelima yaroo kooban buu ku yidhi qur-aankana ku qoran wa raxmatii wasicat kulla shay raxmaddaydaa ka gun weyn raxmaddayda baa ka ballaaran oo ka gun weyn waxaan qadarkayga ilaahay muxuu yahay suuratu buruud maxaa ku jirto facaalun lima yuriid facaalun lima yuriid ilahay tabaaraka wa tacala wuxuu doona sameeyey way cid ka daba hadli karta ma leh weliba wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacala nabi muuse ku yidhi yaa muusa haweenayda tan habeen iyo maalin iyo dharaar iyo saacad walbo yaa rabbi ilaah awlaad isiiba ku haysaa aniga liiskayga waxay ku jirtay laakiin raxmaddayda ayaa wax walba ka waasic noqotay wa raxmatii wasicat kulla shay raxmaddayda dhulka saa ugu waasic noqotay oo meel walba gaartay raxmaddiina waa tan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lala soo diray ee ilaahu lahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan caalamiin bal nabiga xadiis saxiix wuxuu ku leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa u sugnaatay boqol raxmaddiisa ah boqol raxmadda rabbi subxaanahu wa tacaala boqolkii raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala u sugnaatay hal mid dhegayso waa hal mid oo ka mid a adduunka la keenay 99 raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu okeydiyey 99 ilaahay raxmaddiisa ka mid ah kayd buu u dhigay hal mid oo ka mid ah ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka keenay halkaasa miduu iskugu naxariistaa ibni aadanka halkaasa xayawaanka loogu naxariistaa halkaas muu adduunka ay ku kala socdaa 99 kalena rabbi tabaaraka wa tacaala jala jalaaluhu cama nawaaluh kayd buu u dhigtay si ummadda oga abaalmaray walaaliy haweenaydaas maxay ku heshay ducay ku heshay ilahay bay ku calaacashay ilahay bay isku dhiibtay ilaah kamaysan quusan waad garanaysaan subxaanaka ya ilaahi waad garanaysaan nabigii saddexda maaragtay mugdiyaal dhexdooda galay ee ilahay halka ka soo qaydiyey ee yidhi laa ilaaha illaa anta subxaanak innii kuntu min adaalimiin ilahayna u ka fayday marka waxaan ka wadaa ducooyinka ilaahay la baryo laguma qado ducooyinka ilaahay la baryo laguma qodo lagumana hungoobo
lagumana hungoobo waa laga faa'iidaa laakiin yaqiin cala allah ilahay ku qab waxaan nidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam masaajid buu soo galay markuu masaajidka soo dhex galay misena wuxuu kala kulmay nin masaajid ku dhex jiro oo asxaabta ka mid ah markaasuu ku yidhi war saacadda aan masaajid ku dhex fadhiyid waqtigii salaada mee maxaa qaldan markaasuu yidhi abu umaama wuxuu yidhi nebi allow humuum iyo duyuun yaa dushayda saaran walwal badan baa iska kay dul saaran taasaa waxay keentay inaan saacadihii salaada aan ahayn aan masaajidka ilaahay tabaaraka wa tacaala kusoo cararo nebiga wuxuu yidhi maku baraa kalimaad oraah maku baraa ama maarata kalimaad eraya isku tagtag maku baraa oo haddaad tiraahid ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaa qaadaayo walwalka iyo walbahaarka nacam waxaan rabaa hooyo soomaaliyeed aabba soomaaliyeed inta haddana daawanayso ducadan haddaad taqaanaydna alxamdu lilah haddaadan aqoonina bilaahi calayka maanta waxay ka dambeeya weelee haddaa xataa taqiinay oo aadan akhrin jirin kaga faa'iidayso ducadan waxay ku bilaabanaa sidatan weliba waxaan codsanayaa oo codsiga ah markaan soomaali carabi ku akhriyo ciddii soo qori karayso af soomaali in lagu soo qoro si kuwa aanan carabiga akhrinin kuwa aanan carabiga qorin ay uga faa'iidaan kuwa aanan carabiga akhrinin carabigana qori karin caawa inay ka faa'iidaan baan rabaa oo noo soo duceeyaan oo dhahaan ilaahay oo ducadaas way anfacday walwalkii iyo walbahaarkiina wuu iga kacay allaahumma innii acuudu bika min alhammi waalxasani waa hal mar ayadaan dhammaynaya ducadii ilaa aan gadaalkeeyo kadibna waa soo qoraysan insha allahu tacaala weliba waxaan codsanayaa asad ama maamulayaasha intay la joogtana inay ducadii oo maarata meesha haddaan layfa ka ahay qaybta sare iyadoo carabi ah qisadii iyo raawigii weliba raawiga abu daud baa soo warinaya inay noo soo saaraan biidn illahi tabaaraka wa tacaala allaahumma innii acuudu bika min alhammi waalxasani وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رواه أبو داود ودعاء كوبا لكن وحربة إن لا حفديه وحربة إن لا ويليه وحرب عاو إناد مسكحة هذا الجلسيد وتلاهد بإذن الله تبارك وتعالى وكد عيسى ولما السحابي واسيها الله وحولي والله نبي مركي أفكي سكصوب حظي وأن دعاء بالله همومتي إيا كربدي إيا والولكي إيا والبهاركي هيو دن وأقبح والولكي إيا والبهاركي إيا كربدي ولما حولي ديونتي إسكيدو صارنينا وأقبح ذي أنا مرة بتكون عليه ducada waa duca aad wada maqasheen ducada ku cusub maaha waxaan jeeb kala soo baxay maaha waxa aad maqlaysaan maaha inaad maqasheen baa laga yaabaa inta idin kamidana inayba dhag caawa ku cusubtaa laga yaabaa kii ku cusubtaa in caawa qoro kii qiinayna ku laalaabo waxaa laga yaabaa kay ka maqayna caawa ku soo bixiyay ku laalaabo ka faa'iideyso allahumma inni أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وكسو عليا إلا يتضوجر معاو بلنقاض إنا كعل عليم وانكعل وانا معنين دونا بإذن الله تبارك وتعالى سقفك أولا دنسضه وحا أوليه معناها إلا ذا مركنا كعلنا إن شاء الله تعالى اللهم weliba waxaan codsanayaa ciddii awoodo inay noo soo qorto ciddii af soomaali ilaahu khayr ku sii ina maxamuud qofkaas ilaahu barakee gacanta allah ku barakeeyo wataasaa ayadoo maaragtay af soomaali baanu filayaa wakaasa nacam ilaaha idin barakeeyo iisoo qora aniguna ducadaas kugu darayaa waxaan rabaa hooyo walbo aabbo walbo mid walbo kurbaysan inuu ducadan akhristo mid walbo walbahaarsan inuu akhristo mid walbo dayn iyo xaalad ku cakarayn inuu akhristo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka faydo weliba habeenadu kala duwan maalmuhuna kala duwan saacaduhuna kala duwan waxa caawa wixii ka dambeeyay aan qarka u fuulaynaa inaynu galno 10 habeen mubaarag ah dilxij oo qofka amal walbu sameeyo loo labalaabayo ducada ilaahay baan ku dhaari ka waran meel ilaahay tabaaraka wa tacaala amalka uu labalaabayo markaad quraan akhris markaa samaysid oo tasbiix samaysid oo tahmiid samaysid oo tahliil samaysid oo ilaahay aad ku calaashid 10 kaana ducada waxa laga yaabaa in si gaar ah aqbalo haddii wax kugu taagnaayeen 10 kan kaga faa'iideyso hadday kurba ku haysay 10 kan kaga faa'iideyso hadday walal ku hay ducadan iyo 10 ka isla qabso ilaahay waxaan ka rajeynayaa biidin ilaahi jalla wa ala in ilaahi tabaaraka wa tacaala uu ku yasira biidin ilaahi jalla wa ala an ku celiya markale allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إلهي خير السيدات فربنا با سو قري إلهي تبارك وتعالى قعمه أبركيه
ilaahay maskaxda u barakeeyo ilaahay aqoontooda u barakeeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaka naftirkooda kurbadays allah ka qaado midka caawa sheergareeyo midka qoro af soomaali kusoo qoro midka sii gaarsiiyo midkii xitaa qof walaala ka caawiyo yidhahdo waar ducaadii aan aqaanaaye kurba markaysaa qoro ee ka faa'iidaysa yidhaahdo ilahay tabaaraka wa tacala asagana khayr ha ugu bedelo ilahay tabaaraka wa tacala asagana wax ka khayr badan ha ugu bedelo allahumma إني ولي بصومال مركز لك سوق قرصي دتك أقول فايدان الله يدم بركيه اللهم إني هدي قفك حتى عربي كسوق قري كلنا أصلا وحنا دعاء أوضلنا إن شاء الله تعالى إن قصوا عن سلاي هذا ما أركيه إن كرس عرمتهاي إن ما مولاش النفس صارين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجمن والبخل وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال هل كاس والدعاء ذكر عاو حرام أنا نسدح دعاء إذن شباب دعاء ذاس والدعاء ذكر وأنا معنين دون أبو الصعدة إسلا دعاء كله oo ayadoo baab kale oo ka dheereen kan loo akhristo cadow waad ka baqaysaa dawladda naftirkeeda aad ku agnooshahay baa ku daba socoto ama ilmaha lagaaga dheganaado ama si un halkugu dheganaado balaaya kugu maqa ilahay balaaya namadaba dhigay qolaa kaa daba shaqaynayso ayadoona ducaa jirto oo qofku cabsanayo ee walwalsan weliba ducadaas waxay leedahay laba qiso oo aad iyo aad cajiib u ah kow qisada koowaad waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi 100 halaad qofkii nebiga keenay calayhi salaatu wasalaam madaxiisa noo keena keliya waxaa la duldhigay nebi maxamed dushiisa 100 halaad qofka wato faa'iza adin allah ku barakeeyo ina maxamuud qofka watana allah barakeeyo dhammaantiin allah idin barakeeyo inta sheerka iyo inta live gare inta maaragtay ducada soo qortay Soomaaliya dhamaan inta shaashadan ku jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna wada barakeeyo iyo ummadda muslimiinta oo dhan ilaahay dunuubtooda dhaafo ilaahay walwalka ka qaado nabigeena calayhi salaatu wasalaam 100 halaad 100 halaad oo geela ayaa la duldhigay ee la yiri qofkii inoo keenaa nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkiiba 100 halaad garamaysa maanta 100 halaad wagaas qiimaha ila yoomina hada 100 halaad qiimo leeyihiin وأنا كلا ترتمي أمرك نبي قال لنا بعد قبل لو جرا سلور هذين لا سوق قبل لها ورنبي سوق قبطوي نول بق تلابدي يتاكتوا لها وكل دقائق السنة بيجي عنده وصل لها عليه الصلاة والسلام السراقة ابن مالك اللي هذا ورجع فرس كيسنا ديريو إن كرة تخصصي إن دولكا يوم ارتقابك وحلو باري قانو نيكي ما دبلكت دتك مركي حق كده دون نعكل كل هذه محور رأي لو بقول خلاص عنده كله ninka kaliya waxa way nabiga qaban rabay isha way arkeen asaga nabiga dhag wali Abu Bakr sidoo xulay nabi Allah nin faras wato yaan ugu daba dhagan nabiga markuu ducada akhriyay faraska nin ka dhacay dhulku dhacay macal seefti asaga markaas wadana soo fuulay markaas nabi Allah waan ugu daba dhagan yahay hadana mar rabad nabiga ducada akhriyay alayhi salaatu wasalaam hadana faraskii buu ka dhacay macal seeftiis markaas dhaxad dhibaatada waa ka dartay meesha uu maraya dhulkiiba maartay dhiiqadii meesha dhoobada uu maray yaa faraska lagu hore gashay asaga baa calaalay oo yiri waa ku bariya ka taagantay please waa noqonayaa anu asxaanaysan waa ninkii hadda wax raadinayay ee raba laha nabiga gacanta ku dhigaya asaga baa calaalay xulay waa ku bariya please codsi buu dhiibtay hal mar imaartay bal saa u laaban laha falankeeda galo caf iga leex waxaana ballan ka qaadayaa buu yiri cid ku daba soo socoto inaan ana waligay soo raacin ducadu waqtiga nabi akhriyay ninkaas uu akhriyay ee markuu ninka daba socday waad garanaysaa adigoo qor lagu hayo ama adigoo cadow ku qaban rabo markaad ilaahay tabaaraka wa tacaala magan gashid jawaabtiyaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala magan gashid jawaabtu rabbi ka bixiyo lagayso ayadana ducadaasna waan haynaa waa isla ducadii ilmihi yaraa ee boqorkii ama raahibkii markii dambe isbedelay ee uu yiri ibar oo qisada macruufka oo taqaaneen ilmihi yaraa markii la soo dilo ee labada nin la raaciyay ee maartay ciidamada la raaciyay ee buurta fuuleen ducadu akhristay weeye ilmahaas asagoo keligii ah oo bad qabo oo wax yar oo xagtana gaarin ayuu ku soo laabtay ninka raahibka ahaa oo ninka meesha u taliyay markaas wuxuu ku yiri waragi aaway ما أقالوا ماشي كبحن ودعاء أخست أيضا وسيدنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هيدا بركة وتاسا ما ملك الدين تنا ونستيحة وحصول لجن قصة هذا آخرني أيضا عربية
iyo ducadii oo qoran wataasaa idinkaga muuqato shaashadda. allaha barakeeyo gacmaha maamulayaasha boggaan barakaysan ee diinteennu waa nasiixo ilahay iyakana hanoo xifdiyo iyo dhammaan walaha muslimiinta. ilahayna waxaan weydiisanayaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa ku weydiisanayaa inta kurbad hayso ilahayna kurbada ka dulqaado, inta walwalsan ilahayna walwalka ka qaado. ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walbo caawa kurbo melekaysa anigu kurbada ma kala garanayn, qof walba inuu ka baahan yahay. ilaahayow adcuuka biasmaa'ika alxusnaa wa sifaatika alculaa allahuma anta alxaq wa qowluka alxaq wa qulta adcuunii astajib lakum. ilahu waxaan kugu weydiisanaa biasmaa'ika alxusnaa wa sifaatika alculaa qof walboo kurbaysan oo walwalsan caawa ciwaanka markaan kusoo qornay waa duca walwalka. dadku waa soo wada galeen. ilahu kurbad ka qaad. ilaahu meel walba qofka baana ma aqaan adaa garanayo. ilaahu taclam qof walba waxaad og tahay qalbigiisa wax ku jiro. ilahu mid kastoo kurbaysa ilahu kurbada ka qaad, walwalka ilahu ka dulqaad, ilahu meeshu ka baahanya ka qaad. ilahu kuwa maaragtay xataa xanuunsan ee caafimaad daradayso ilahu caafimaad khayr qaba sii, ilahu caafimaad khayr qaba sariica ugu bedel. ducada usoo laabta marka nabiga muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam. nabigeena maxamed ah salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu arkay cadowgiisii ee meel uu dhaqaaqo uu garanaya laakiin ilahay buu yaqaanaa, waa nebi ilaahaye, muxuu yidhi allahuma kfiniihim allahuma kfini. ducayo aada u kooban, riwaayada weliba saxiixaan sheegaynaa. allahuma kfini bima shit, allahuma kfiniihim waa ducada midda uma sii sheegayno kayfa shita iyo maarata ku daramayno. allahuma kfiniihi bay ahaan lahayd waxdigiis, laakiin ducada sida jamac u tahay ama raawiga uu saxiix ku yahay allahuma kfiniihim bima shit. allahuma kfiniihim qofkii awoodo ducadaas waa duco macruuf ah, ha soo qoro ayadoo af soomaali ah ayadoo carabi ah si ummadda kalena uga faa'iidaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala, biidn illahi jala wacala. walaalaha ha noo soo qoran biidn illahi jala wacala. ducadaasna waan macnayn doonaa, ayaduna macnahayda ayaan saari doonaa biidn illahi jala wacala. ducada saddexaad maku daraa midda mise caawa labaasan ku ekaanaa? caawa labaasan ku ekaanaa mise midda saddexaad waan ku darnaa? horta codsi adinkaa la weydiinaya. caawa labadaas ducaan ku ekaanaa weelaynaa mise midda saddexaadna caawa ku darsanaa? adinkaa la weydiinaya insha allahu tacaala. shukri abo miya nacam way ku jirtaa qofka wata hana. ducooyinkan oo dhan waa ducooyin waarida ah, ku dar. baaraka allahu fiikum. ilahay idin barakeey. ilahay subxana wa tacala ha idin barakeey, ha idin dhowro, hana idin xifdiyo. isla ducadaas ayaduna aad bay u kooban tahay. ibnu maaja werinaayo qofka hadduu kurbaysan yahay ayaduna isla kurbada wey uu weliba aada u kooban tahay. allah rabbi laa ushriku bihi shayan. waa ducaada kooban. allah rabbi laa ushriku bihi shayan. wuu ku celinaya allah rabbi laa ushriku bihi shayan. ayaduna waa duco kale oo ayadana sugan nabigeenagana ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam, uuna qofka u qaadan karo oo u akrin karo markii uu walwalsan yahay. caawa waxaan qaadanay 3 duco biidn illahi tabaaraka wa tacaala. habeen ama wiigii 2 jeerna 3 duco aada u kooban la xifdin karaan soo gudbin doonaa. aan u laabto marka ducada ugu horreysay inaan macnayno. ducadii ugu horreysay inaan macnayno tanna waa sheegnay. allahuma kfiniihim ma shit. maasha allah. suldaan ilaah ku barakeeyo. sultaan qofka wato ducadii hore ducadii labaad buu soo qoray. ducadii horaan marka macnayna walaalayaal. midda kale dadka waxaa laga yaabaa dadka qaar markay dhibaato ku dhacdo inuu iska ooyo ama uu sameeyo maxaa hebelow calaacalo, qof calaacalo yirahdo hebelow waxaana igu dhacay, waxaana ay qabsaday, kurbadana ay haysato. nacam ibni aadamku is caawin karaa, laakiin waxaad og tihiin nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam dab baa loo shiday. weliba waxaa la yidhahda duyuurta shimbiraha dabka nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam dabkii loogu talagalay in lagu rido shimbiraha dul haabayo waxa ka soo daadanaya ayagoo macal maqaarkooda iska daa lafoodiya banaanka imaanaya. waa shimbirtii damacda inay dul hahaabto ama dul marto isla markiiba maqaarka ka kacay. haddana nabiga ilaahay baa lagu tuuray meeshaas. isla markiiba jibriil calayhi salaatu wasalaam baa soo dhaadhacay. markaas wuxuu ku yidhi khaliilka ilaahayo ma u baahan tahay musaacada inaan ku caawino u baahan tahay? hadal yaroo xikmad lahu yidhi nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam. ma xaggaaga u yidhi mise xag ilaah inaan ku caawino u baahan tahay? alashkood aan ku caawino oo kuwan wax kugu sameynayo ayakoo aan halaagno. markaasuu yidhi haddii xag ilaahay tabaaraka wa tacala rajo ka qabaa waxa uu yidhi waad garanaysaa. ducadii koobnayd uu ilaahay subxaana wa tacala nabigeena ku ducaysay marka xitaa gaaladii cadowgii ay kusoo fool lahaayeen. maxaa la yidhi? dabkii nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam dab ahaanta u shida waxaa lagu yidhi kunii bardan
وسلاما على إبراهيم. ملاقي كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أمر بوحلو سنة دبكي إنه وقت قبو بنادو قبوغي بهدل عليها نقو قبو أنا نبي جارسين النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دبو هرتوا دبك واد دبي كو هاي ولا قبو جيم قبوغي بحليها هدل ليميت كان عارفينه تم برشك الغوطة لقلي هكذا عاقن والنبي جيجا إيه إلالي أو قبوغي يصنقون ولا قبوغي نفس وعذاب وضعت يوروب تاني مالها المرايكم كل جودتك مركو قبو جاكتا الوضع عرا دبكي بالي هلا دميو ولا دمي قبوغي بهدل على النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدبادر اللي هي وحمنا يجارسين حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنه قفك كدعي سنة ومهم مركز قاركود دعاء ما معنا إن شاء الله تعالى دعويك قفك مركز كدعي استو وحضرنا يسو إن كربتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إن دعويك فضل بدين بدين شيئا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهابين هذا كم إذا حاسك سؤاد وجعلاء أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ونبتسا نبتة وصاو وجيفه رواية كان لنا أيضا كجيب سكة سبعتين أدو يسكنوا ويهين أيا نبي وحي اللهم اغفر لي عائشة إله عائشة قدام مداف وحي هرم مرسطي وحي دبدقتي إله قدام مداف وحالي أمنا عائشة وحي عينك شكرس وحان قصلي لنا قصل أنا ولي قصلي فرحت بلد على نبي قبلكم عاركين عائشة كبط يدل على فرحت لأن الدعاء لله والنبي إله أبر يمكن ما قشيت أيها حكويري ما وحد لا يابنتها النبي عليه الصلاة والسلام وحد لا يابنتها دعاء يا ما ارتقاك ودعاء النبي قال له ها مركز النبي أمددا أود دعية هذه جر النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه أمددا أود دعية دعوات كيدعوين كانوا نوعانو كلاه مركز دعي سنو دعاء هراء كل واحد فيليا إن وأنا لسوقري وأنا معناني أو كلية سيقف والبوقف فايدو دعاء هراء بإذن الله تبارك وتعالى ويجينا لما هبين أما صدق هبين من كان يقولنا طبعا كان بنا أوتر قال إن هبين والبو إن أما ويجاس لو ده هبين وكستر أن صدق الدعاء وكدو الدعويك أشياء مركز إن أمضوا كفائدا بإذن الله تبارك وتعالى دعاء نوح النبي وأضل دار السحابي يدلكها يا يقان السحابي والدعاء النبي أضل دار هذيك الودينا يا هذا الشيء وحير النبي صوق لمساجدك مركم مساجدك صوق لي وحوي من السحابي فنيه مركز سكوي والسحاب حاكوا لك الساعة وقتنا مساجدك وقت الصلاة ما هي مركز الهموم كربو يولول يولبهار ستريس فرق بدون إيقاف ربطي يلا سو عرّو مساجدك وسو عرّي ما تقانا السحابي مقعيس واشاقي عدي تقانو سحابي هنوشكت هذا الشيء سحابي نبي وصل عليه الصلاة والسلام أصلا مساجدك نحفظ ليه إيه ولول سنة إيه كربي سنة إيه والنبي كويري نعم قفك وتو شكرية أم أحمد ما شاء الله أمامة الله أكبر ولا سعتان وعلى سؤال شديد ودي إلى لا سعتان إلى كريه إسكاه الله وإسلا سعناوي ترانك وصارنا مرك ترانك أنا قد عند ترانك حد سكر سيا مرك وطفي عنتين ولا سعتان نبي عليه الصلاة والسلام مرك الدعاء وبرواتنا نبي يقول اللهم نبي اللهم الله يو أما يا الله وي اللهم ويا الله إله يو إني أعوذ بك أنا وحن كام ينقلت إله ما ينقش إلهي تبارك وتعالى وعد كم ينقش شيء همومتي iyo kurbadii iyo walwalkii ku hayay ka maangash horta alla magan gala ilaahay laga magan gala maxaan ahnaa markaad shaydaanka meen aragna maya maxaan ka magan galna a'uudu billahi min ash-shaytaan rajiim ilaahay ka magan galna markaa musqusha galaysid allahumma inni a'uudu bika min al-khubuth wal khaba'ith ilaahay maangash qofka wahada wax maangalis ilaahay maangal waa aqeedi waa wasta'anta fasta'in billah hada wax kaalmo weydiis ilaahay subhanahu wa ta'ala kaalmo weydiiso koort ilaahay maangash allahumma ya allah ilaahay أعوذ بك وحن كان مجن جليا أو مجن ما أنت كعاهي إله أذان مجن كواهي وحنا مجن كعاهي والول كهايو كربضة يهيسو وحي هايو نمر ربي ومجن كعاه إن إيجا قادوا من كعاه معناه دول هم بيجي مركز دول فل هموم ونقنية كربضة مركز إسفوشنا وحين قلنا كربضة ويك استعرعنا وأيضا ويسبدل ساي وحين قلنا حزن مسكوي ما نساوي وحد جرى إنسان قف كمؤمن كأ إلهي كحرا عجيب وحا قرآن كإنه عجيب يعني الشيء واتقنا قرآن كإلهي تبارك وتعالى قفك مركو النفط كبحيس وإلهي حقي صلوه قادناي هدي وهقف ونكسن وصالحة وإلهي كحرنا إلهي وحقوقي قفك إنه كتغي عرور إنه كتغي مسؤولية إلهي وحقوقي قفك إنه كتغيان لكن إلهي وكحرنا سماه ملايك بالله صدرا قفكاس ما حيكون ترى متقنا واتقنا قرآن ألا تخافوا ولا تحزنوا
وها عبسن وها كاهر يا كعبسن مفسرين عليه وحلقة وذا ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله كل الله وربين ثم استقاموا هذا كنت كسقنا هذا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة بأسودكت محكوت هذا ألا تخافوا وها عبسن هو الولي أوها عبسن أوها كربون يا ليلى أوها كربون حكتمت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون مركا ملوك تويجرتا من دوك سنادا أديك هدي ما أنت ملوك هيني متك لهيسا باش هو وريغتوي مدو مربع ولا غدا مدو مرمت هذا أدو ما أنت كان بقى تقف كله كله جنته مركا إله وحن كمان قال يا همي يومارت كربلا يا كمان قال يا عاجز وعذر هو قف إنه إله سبحانه وتعالى عجز قرآن ما أخرته صباح إلى القرآن كآخر سارته يكسر واسكواله معناه اسكو دوي كتابك كلا بحيره وكتابك الله تبارك وتعالى مركو قرآن آخر ها ما سنه مرك waxaa laga yaabaa inuu journaal ama Facebook uu maanta iskaga jiro wax iska maarsa iska leeyahay iskaga ciyaarayo ama wax kale ku jiro laakiin markuu kitaabka Ilaahay soo qabto inuu akhriyo uu rabo wuu hamaasanaya hamaasigaas Ilaahay ka magan gal asagana waa cudur Ilaahay laga magan galo kadalika Ilaahay tabaaraka wa taala wax ka magan galasa fulaynimo qof inuu fulay noqdo uu baqo waxyaha laga magan galo way iyo bakhaylnimada iyo in diyuunta inay ka qaalib noqoto إلهي تبارك وتعالى الدعاء أنا كمان جلس عدينا سام إسلا الدعاء كله أو شغني اللهم الله يوم يكفنيهم إله يكفي اللو بما شئت سادوتي إلهي ما أدي ما تهجاك حتى إله يكفي اللو لما تدعى يعبسني عدو ونوس وجهن إله شبت ضا يغفر وأنا مد اللو باه يقف إله عرّ إله يمسكه في نعم إله وصل كلها تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي تلوني بتاع التلسع تعسى كفلا إله ونقول فليه أو لم يكفيهم في سورة إمارة هيدبا سورة إمارة عنكبوت إلهي تبارك وتعالى يسو كفلا نعم إله كفليه مرك إلهي تبارك وتعالى أينو تلوني منه وهان أسان وفلوي ودعادي لبعد دعادي صدحاد وحيث هاي ابن ماجه أن أساس إمارتي حق كتاب سكسوغنت هاي وحيد اللهم الله ربي لا أشرك به شيئا الله وأسماء الله تبارك وتعالى ربي يو لا أشرك به شيئا وحنك لو ذا دين ماي إله يو يقد القاد والولك يو البارك وحيد كوتا قالي أنت مدة كومن إن إذا لو ذاقو دعوي كان سدحده إله هيدا بركيو ملك السؤال عالم كجوتان خير كاس عنك جتريا وقت يرو كومن يدعى كومن يعني ربنا إن لو ذاق عاوة إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتها نصاره عملك إلهي خلاص نقول ما تمالا كباهي بدلنا هينا إلهي تبارك وتعالى هاينو وأنفعه وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.